nabadda waxay ka mid tahay meelaha ugu caansan ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Halkan waxaa yimaada boqolaal kala duwan oo dadweyne ah kuwaas oo ka yimaada 17 degmo ee ku yaala gobolka Banaadir. Dadka ugu badan ee halkan yimaada waa dadka shaqeeya ee inta badan jecel in halkan ay waqtiyo kala duwan ku qaataan. Waxaa sidoo kale halkan lagu qabtaa xaflado iyo munaasabado kala duwan. waxaan ka mid ahay dadka degan magaalada Muqdisho kana shaqeysta maanta waxaan imid halkan aad arkaysaan waa beerta nabadda oo kumanaan dadweynaha ugu soo dhamaashaa tagaan maalin waliba gaar ahaan maalmaha fasaxa ah iyo maalmaha munaasabadaha ciidda iyo maalmaha farxadda ay jirto runtii meeshan waqtiyadii hore meena jirin laakiin hadda waxa weeyaan meel nagu cusub oo nagu soo kordhay magaalada Muqdisho nasiib u yeelatay meeshan oo kale loo sameeyo bulshadana ay ka helaan nicaaw aad u qabow iyo muxuu ahaa jawi aad u macaan kaliya inta la furin meeshan markii hore dadku waxay yaqaaneen kaliya xeebaha iyo dhulkaas in la aado dadkii maadaama ay bateen oo dadkii ay soo jabeen waxay noqotay in la furo bileysyo noocan oo kale ah dadkuna ay u soo dhamaashaa tagaan beerta nabadda waxay ku taalaa meel u dhow aqalka madaxtooyada iyo dhabarka dambe hotelka SYL degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir waxaa magaaladan laga hirgeliyay horaantii sanada 2015 waana goobta ugu badan ee maalmaha dhamaadka isbuuc walba ay isugu yimaadaan dadka waxaan imaanaa mararka qaar aan waqtiga firaaqada helo meeshaan meel aad u qurux badan dadkuna ay isugu yimaadaan aan ku soo xasuusano Soomaalinimada midnimada jaceelka waa meel oo hobbigayga aan ka helo aniga furfuriidkayga oo teemkayga aan markaan helo aan siiyo qalabka caruurta ay ku ciyaaraan wiifooyo casri ah goobo nasiinada ku wanaagsan maqaayada lagu cunteeyo iyo goobo ku wanaagsan cibaadada ayaa halkan laga helaa waxaan booqanay waqti casr liiq ah dadka ugu badan ee aan halkan ku aragnay waxay ahaayeen haween iyo caruur beerta nabadda waxay ku bilaabatay fikir ay isku ururiyeen ama ay soo ururiyeen dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo macnaha dibadaha ku soo bartay iyo qaar gudaha ku soo bartay marka yaani fikirkayga waxa ka soo baxday in la sameeyo dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho inay macnaha ay meel ay ku damaashadaan oo ay ku tamashleeyaan oo ay ku iloobaan dhalinyarada kala waxbarashada ay ku iloobaan dadka shaqeeya ay ku iloobaan macnaha shaqadooda iyo daalka dadka macnaha haweenka iyo caruurtana ayaguna ay macnaha ku damaashadaan guryaha iyo dugsiyada iyo waxaas ay ku hilmaamaan marka fikirkii waxa ka soo baxday sida hadda aad arkaysaan muuqaalka wanaagsan ee macnaha beerta nabadda aan loo bixinay beerta nabadda waa magac xambaarsan magac aad u qiimo badan maadaama Muqdisho lagu xamto ama laga sheego markasta inay tahay magaalo burbursanaan jirtay magaalo macnaha dagaalo fara badan oo dagaalo sokoya ay aafeeyeen sidaas darteed ayaa waxaan u bixinay beerta nabadda Aways Maxamuud Jilcow RTN TV Muqdisho